بسم الله الرحمن الرحيم وهبينما تلاده oo ay arbaca soo galayso 9 bisha September sanadka 2025 oo ku beegan 17 bisha Rabiicul Awwal sanadka 1447 taariikhda hijriyada ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii qubanaha qodobada barnaamijkan caawa aan idinku haynana waxa kamid ah Israa'iil oo muddo dheer ku faa'iideysay weerarada qaarijinta ee ay qaado kadib markii ay beegsatay hogaamiyaasha ururka Hezbollah saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran iyo waliba saynisyahanadii Iran iyo ra'iisul wasaaraha Xuutiyiinta oo duqeymihii ugu dambeeyay lagu dilay caawa ceeb iyo fadeexa ayay dhex fadhidaa kadib markii ay ku guuldareysatay in ay beegsato hogaamiyaasha ururka Hamas عبارين وين أيها كإيمان يسا عالمك روشك شيرها تركيا وضبط عربتا يقبل كأو إذن أيها سوين إسرائيل وعبارين أيها حماس وحا يكون واقعي إن أي سنة هبكا ديجي دونين إسرا مركا سنة أي سيديبي دونين أي نوادي دونان هلقن كودا إلى إنت إسرائيل كحرين أيان لروكا فلسطيني إنت أباندولها عيدك إسرائيل وإسرائيل قرن ويتهالي أيها شاقي إن إسرائيل أي سنة كهري دونين hogaamiyaasha Hamas oo meel kasta ay ku baagsan karaan hadalkan oo muuqanaya qirasho dadban oo ah inay ku fashilmeen weerarkii lagu qaaday magaalada Doha ee caasimadda waddanka Qatar sidoo kale waxa soo baxaya war imika ka soo yeeray dhanka Mareykanka oo Donald Trump uu ku andacoonayo in Qatar uu ku wargeliyay weerarkaasi inuu ku soo fooleeyahay xagga Yurub markaynu eegno Faransiiska iyo Britain ayaa kamid ah wadamada sida adag u cambaareeyay weerarkan lagu qaaday waddankaasi Qatar waxaynu kula eegi doonaa waxa qobarada arrintan ay ka tiri iyo sidoo kale wararka amuurtan la xiriira siimoodi dahablaha ugu weyn geeska Afrika haddii aad samayso wacan dahab aad sugayso saadaalinaysay Singapore iyo saf Bahrayn iyo Hindi noocyada u sarreeya oo si wacan loo naqshadeeyay waxaad ka helaysaa xarunta siimoodi waa dahablaha ugu weyn geeska Afrika dahabyada uu iibinayo waxa kamid ah Bahrayn Singapore Hindi designs waxaana aad ka helaysaa jumlo iyo tafaariiqba waxaana uu xarumo ku leeyahay Dubai iyo Hargeysa faahfaahin dheeriya waxa aad kala xiriirtaa wadasabyada Hargeysa iyo Dubai ee aad ku aragto shaashada Al-Misbah Islamic Online waxaad ugu tageysaan barashada Quraanka iyo culumta diiniga ah oo hab online ah lagu baranayo dugsigu waxa uu qaadanayaa arday cusub oo isugu jirta caruur iyo dad waaweynba maadooyinka lagu barto waxa kamid ah xifdiga Quraanka Kariimka barashada akhriska iyo qoraalka higaada Carabiga axaadiista iyo siirada rasuulka sallallahu alayhi wasallam barashada salaada iyo ducooyinka luqadda Carabiga iyo maadooyin kale dugsigu waxa uu bixinayaa caddayn waxbarasho ama shahaado ka turjumaysa aqoonta aad baratay wixii faahfaahin oo inta dheer kala xiriir WhatsApp-ka shaashada kaaga muuqda xarunta caafimaadka ee Private Walk-in Clinic waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaaraynaysaa inuu dhawaan xarunta ku soo biiray Dr. Akan Efe oo ah khabiir ka soo shaqeeyay howlaha caafimaadka muddo ka badan 30 sano Dr. Akan waxa uu diyaar u yahay inuu dhammaan bukaanada ku qaabilo xarunta Private Walk-in Clinic khaasatan haddii ay cabashadaadu la xiriirto xanuunada caloosha dhiigkarka cudurrada wadnaha ku dhaca dheefshiidka iyo cudurrada guudba xarunta Private Walk-in Clinic waxa ay ku taallaa galbeedka magaalada London wixii faahfaahina waxa aad kala xiriirtaa emailka telefoonada iyo baraha bulshada shaashada kaaga muuqda soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad u hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka maxamed Cabdi ayaa barnaamijka caawa ila tawinaya waxaana intiisa badan barnaamijkan ama gebihanba aynu ku soo qaadanaynaa macluumaadka iyo wararka la xiriira weerarka fashilmay ee Israa'iil ay isku dayday inay ku qarajiso ugu yaraan 6 ka tirsan hogaamiyaasha ugu muhiimsan ururka Hamas ee dhanka siyaasadda maxamed bal waxaad inoogu bilowdaa warkan ka soo yeeray Hamas ee lagu beeninayo in Israa'iil ku guuldareysatay weerarkii ay qaaday bayaankii ugu horeeyay rasmiga ah ka soo baxa Hamas kadib markii Israa'iil ay weerar ku qaaday magaalada Doha oo ay ujeedadeedu ahayd in ay la beegsato madaxda Hamas ya Hamas waxay sheegaysaa in weerarkaasi looga gol lahaa in la burburiyo wada hadallada xabad joojinta iyo maxaabiista lagu kala bedelanayo ururka Hamas ayaa sidoo kale xaqiijiyay in mas'uuliyiintii sarsare ee ururka Hamas ka tirsanaa ay ka badbaadeen khaarijintii siyaasadeed ee Israa'iil soo miligtay
iyo halka 6 qof oo ku jiro wiil uu dhalay mas'uul ka mid ah madaxda Gaza Khaliil al-Haya iyo ninkii u ahaa agaasimaha xafiiskiisa iyo nin sarkaal ah oo ka tirsan Qatar ayaa ku dhintay. waxaa mar kale daboolka laga qaaday in falk dambiyeedka ay Israa'iil geysanayso iyo rabitaanka ay doonayso inay yareysato fursadaha lagu gaari karo heshiis ayaa ay ka hadleen ururka Xamaas. waayahay dhinaca kale maxamed ururka Xamaas mas'uul sare oo ka tirsan ayaa isna hadlay oo arrintan xaqiijinaya laakiin hadal adag buu yiri oo ahaa inaysan hubka dhigi doonin isla markaasna aysan isdhiibi doonin qodobkaas inoo faahfaahay. Suhail al-Hindi oo xubinka ah xafiiska siyaasadda ururka Xamaas ayaa warbaahinta u sheegay in duqeynta dhacday xilli ay kooxda xafiiska siyaasadda ururka Xamaas ay ka shirayeen inay ka wada xaajoodaan hindise ay dowladda Mareykanku soo jeedisay. wuxuuna xaqiijiyay in hoggaanka ururka Xamaas gabi ahaanba ay badbaadeen waxa uu ku tilmaamay khaarijinta fuliynimada ah ee isku dayda Israa'iil. sidoo kale natiijada dhalata ayaa waxay tahay wiiri in uu ku shahiido Khaliil al-Yahya wiilkiisa iyo oo la yiraahdo Xamaam al-Yahya iyo agaasimihii xafiiskiisa Jihaad Labad. al-Hindi ayaa sidoo kale waxa uu sheegayaa duqeynta Israa'iil ay ku bartilmaameedsatay cid walba oo bini aadam ah oo xor ah oo caalamka ka jira ayay ku bartilmaameedsatay. wuxuuna ku nuuxnuuxsaday adduunka xorta ah waxa waajib ah in ay arrintan wax ka yiraahdaan. wuxuuna intaas ku daray ururka Xamaas waxa ay mas'uuliyadda dhabarka u saaraysaa maamulka Mareykanka weerarka dhacay marka laga gudbo in ururka Xamaas uu fariimo wax ku oola ka bixiyay hindisaha ay Mareykanku soo jeediyeen. marnaba calan cad ma taagi doono mana isdhiibi doono buu yiri al-Hindi. hubna iskama dhigi doono waxaanan wadi doonaa buu yiri iska caabinta aan kula jirno Israa'iil awood intii aan heli karno ayuu ku soo gabagabeeyay hadalkiisa. waa gartay waayahay dhanka Israa'iil aynu eegno Netanyahu ayaa goordhow ka hadlay muxuu sheegay maxamed. ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo jawaab ka bixiyay in weerarkii uu fashilmay ayaa sheegay in ciidamadiisa ammaanka mar horeba amar lagu siiyay inay soo diyaariyaan in hogaamiyaasha ururka Xamaas ay beegsadaan. wuxuuna ammaanay duuliyaashii diyaaradahaasi waday ee howlgalkaasi sida wanaagsan uga qayb qaatay. wuxuuna yiri waxaa jiri doona buu yiri fursado lagu howlgalo oo looga taqalusi doono waa sidoo hadalka u dhigay hoggaanka ururka Xamaas. waxaana amarka bixiyay buu yiri wasiirka gaashaandhigga inuu amarkaasi meel mariyo. waxaan dagaal kula jirnaa buu yiri ururka Xamaas. waxaan rabnaa inaan soo deyno maxaabiisteena. Netanyahu ayaa waxaa kale oo intaas ku daray Israa'iil hore ayay uga taqalustay waxa uu ku sheegay khatartii jiritaankeena halista ku ahayd ee Iiraan ka soo wajahnay. wuxuuna digniin ku bixiyay in aynan jiri doonin mustaqbalka cid ka reeban weerarkeena. cadowgeena waxa waajib inuu ogaado buu yiri dhiigga dadkeena ma aha mid khasaaraya. Netanyahu ayaa waxa uu sheegay Israa'iiliyiintu inay mar hore ogolaadeen in aas-aaska loo dhigo madaxweyne Trump in uu dagaalka joojiyo. waxaana ballan qaadnay in aan kula xisaabtami doono dadkeena dilay xaqiiqsanna doonana amnigeena mustaqbalka jiilasha soo socda inaan ilaalino ayuu kusoo gabagabeeyay hadalkiisa. waa gartay isla Israa'iil intayna ka bixin waxaa isaguna hadlay afhayeenka baarlamaanka Israa'iil isagu muxuu sheegay. afhayeenka baarlamaanka Israa'iil ayaa markii uu soo baxay filimka la xiriira duqeynta ka dhacday Dooxa ayaa waxa uu ku tilmaamay inay tahay fariin ku socota dhammaan wadamada bariga dhexe oo dhan. waa gartay waa yahay xagga Mareykanka dabcan waanu imaan doonaa Donald Trump oo goordhaweyta
afayeenkiisu ay hadashay laakiin xubnaha ka tirsan aqalka koongareeska ayaa siyaabo kale aqalka sanadka ayaan ula jeeda ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay arrintan maxay sheegeen maxamed senator ka tirsan xisbiga dimuqraadiga oo gabar ah oo Jane Shaheen la yiraahdo ayaa sheegtay wax aad looga xumaaday inay tahay Israa'iil inay duqeyso magaalada Dooxa ee wadanka Qatar waxayna ku tilmaantay Qatar in uu xulafo leeyahay wadanka Mareykanka waxayna ku baaqday in arrintaasi ay tahay dardargelin dagaal waxayna sheegtay inay ku rajo weyn tahay in wada tashi laga yeesho arrintan sida ugu degdega badan waa gartay waa yahay xagga Yurub markan aynu qoraansanno waanu imaan doonaa quwadaha waaweyn golaha ammaanka ku jira sida arrintan ay uga hadleen iyo wadamada Carabta laakiin Faransiiska iyo Ingiriiska hadal adag baa ka soo yeeray maxay sheegeen madaxdooda maxamed madaxweynaha Faransiiska ayaa sheegay Israa'iil duqeynta u geysatay Qatar in ay tahay waxaan la aqbali kareynin sabab kastoo Israa'iil ay sheeganayso wuxuuna ku nuuxnuuxsaday in Faransiiska uu garab taagan yahay Qatar iyo amiirkooda Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani wuxuu sidoo kale madaxweynaha wadanka Faransiiska uu carabka ku adkeeyay inay waajib tahay in la ogolaado inuuna dagaalka ku baahin gobolka bariga dhexe ra'iisul wasaaraha Britain ayaa asna cambaariyay weerarada Israa'iil ay ku qaaday magaalada Dooxa ee caasimadda u ah wadanka Qatar wuxuuna ku sheegay waa in mudnaanta koowaad la siiyaa si dhaqso ah in xabad joojin loo gaaraa maxaabiistana la soo daayaa lana dardargeliyaa gargaarka bini'aadanimo ee loo furayo marinka Gaza waa gartay waa yahay dhinaca kale aynu ka eegno waxa soo baxaya warar sheegaya in mas'uuliyiintan Xamaas ilaa iyo shalay iyo maalmihii la soo dhaafay qaarkood ay ku sugnaayeen wadanka Turkiga laakiin Israa'iil ay sugaysay inay ka soo tagaan halkaasi warkan bal inoo faahfaahin inagoo hadhowtidina sii falaqayn doonaa warbaahinta Israa'iil ayaa ku waramaysa in ciidanka ay sugayeen in hogaamiyaasha ururka Xamaas ay ka soo noqdaan dalka Turkiga ka hor inta aan lagu bartilmaameedsan magaalada Dooxa ee caasimadda ah dalka Qatar waxayna arrintaasi keentay su'aalo badan maxay tahay sababta Israa'iil ay uga baaqsanaysay in ay ku duqeyso hogaamiyaasha ururka Xamaas markii ay ku sugnaayeen wadanka Turkiga waayahay waa sii falaqayn doonaa qodobkaas qaybta falaqaynta laakiin dhanka Qatar warbay ka soo saartay ilaa hadda macluumaadka ku saabsan qasaaraha ka dhashay maxaynu ka ognahay warkaas wasiirka arrimaha gudaha ee Qatar ayaa sheegay in weerarka Israa'iil ay ku qaaday magaalada Dooxa uu horseeday in uu ku shahiiday xubin ka tirsan ciidamada amniga gudaha oo waajibaadkiisa gudanayay waa sida hadalka loo dhigay halka qaar kalena ay ku dhaawacmeen bayaankan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lagu xaqiijiyay in la qaadayo dhammaan tillaabooyinka muhiimka ah lagu difaacayo muwaadiniinta Qatar iyo dadka degan Qatar ana lagu nuuxnuuxsaday in amniga gudaha ciidamadooda dhammaantood la howlgeliyo oo ka qayb qaadanayaan dadaalada lagu ilaalinayo amniga dadweynaha waa gartay waa yahay gudaha Mareykanka haddaynu dib ugu laabanno senator ka mid ah kuwa aadka u taageera Israa'iil oo qalbiga iyo laabta ka jecel aadna saaxiib ula ah madaxweyne Trump ayaa goordhow ka hadlay muxuu sheegay Lindsey Graham senator ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo xag jir ah oo la yiraahdo Lindsey Graham oo lagu yaqaano inuu si weyn u taageersan yahay Israa'iil xulafana la ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegaya in uu la hadlay Netanyahu kulanna uu la yeeshay wasiirka arrimaha istiraatiijiyada Israa'iil Ron Dermer si ay wada xaajood uga yeeshaan wixii maanta Qatar ka dhacay waxaa sidoo kale muuqata buu leeyahay in ay waxtar weyn leedahay kulanka aan la yeeshay hogaamiyahaasi iyo saaxiibkaasi wanaagsan Ron Dermer oo ah wasiirka arrimaha istiraatiijiyada waxa maanta dhacay iyo waxa ka dhacay gobolka bariga dhexe guud ahaan ayuu Graham kala sheekaystay Graham ayaa bartiisa bulshada ku qoray arrintaasi waxaa kale oo uu sheegay inuu telefoon kula hadlay ra'iisul wasaaraha Israa'iil
benjamin netanyahu ayaa ku nuuxnuuxsaday buu yiri oo ii sheegay buu yiri in uu aad ula dhacsan yahay madaxweyne Trump wuxuuna ugu baaqay madaxweyne Trump in uu taageerada taariikhiga ee Israa'iil u hayo oo aanan laga noqnoqonayn ama laga labalabeynin inay sii socoto aadna ay ula dhacsan yihiin sida Trump uu u taageersan yahay xukuumadda Israa'iil. waa tahay waanu imaan doonaa markaa wararka kale ee degdega iyo weliba faraaqaynta oo khubaro ay ka hadlayso iyo sida caalamku arrintan ay uga falceliyeen laakiin intaan u gudbin macluumaadkaas waan isku soo laaban doonaa daawadayaal aynu ku hakanno qadar xayeysiina haddii aad ubadkaaga aqoon sare la jeclaatid halkaad aadi lahayd iyo kana waa American International High School ee ilmaha haatan u geyso waa aqoonta Kamal American International High School farciisa Nairobi waxa uu kugu bishaaraynayaa inuu ku hayo waxbarasho heer caalami ah oo aad qaadanayso shahaado la aqoonsan yahay isla markaana casharrada lagu bixinayo nidaamka waxbarashada Mareykanka haddii aad ka soo guurtay qurbaha ama aad la doonayso waxbarasho tayo wanaagsan carruurtaada American International High School waxa uu ku diyaariyay waxbarashada dugsiga sare waxa uu iskuulkan wada shaqayn la leeyahay hay'adaha waxbarashada Mareykanka iskuulku waxa uu ku yaalaa xaafadda Westland ee magaalada Nairobi wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada iyo shashada kaaga muuqda tacliintii diinta iyo midaan tabaynaan helnay adoo timir beeran kara miyaa tiin qodax leh iyo cadaadda tallaalaysa carruurtii lagu tabcaa toosnaan laga raadiyay u kaalay macadka barashada diinta ee Marso macadka barashada quraanka iyo culumta diiniga ah ee Marso oo habka casriga ah ee online-ka dadka wax ku bara waxa lagu bartaa quraanka kariimka higaada carabiga tajwiidka iyo toosinta quraanka af Soomaaliga iyo ducooyinka iyadoo lagaga qabtirayo hab online ah faahfaahin dheeriya kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda soo dhawaada mar kale daawadayaal wali waxaad la socotaan barnaamijkii qubanaha waxaadna kala socotaan barnaamijyadeena bogagga bulshada internetka aynu ku leenahay hagaag waxaad falaqayntan u gudbi doonaa gaar ahaan khubarada arrintan waxa ay ka tiri laakiin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump afyeenkiisa ayaa goor dhawata hadashay shir jiraa'id ay qabatay waxa ay sheegtay in aqalka cad uu xaqiijinayo in militariga Mareykanku Israa'iil ay ka heleen macluumaadka ah in weerar uu ku fool leeyahay magaalada Dooxa Xamaas lagu qaadayo war-saxaafeedka waxa lagu sheegay in madaxweynaha Mareykanka uu amray wakiilkiisa bariga dhexe Stephen Witkoff inuu la hadlo Qatar oo u sheego weerarkaas inuu ku soo fool leeyahay waxay sheegtay in Trump uu qadka telefoonka kula hadlay amiirka Qatar iyo ra'iisul wasaaraha Qatar isla markaasna wuxuu sheegay inuu u xaqiijinayo dib dambe inuu soo dhici doonin weerar Israa'iil ay ku qaadaa wadanka Qatar aqalka cad wuxuu kala xusay in duqeynta kaligeed go'aankeeda ay ahayd mid lagu qaaday Israa'iil isla markaasna lagu qaaday Qatar wax faa'iido aysan lahayn oo aysan u horseedeen faa'iido Israa'iil iyo Mareykanka taasoo muujinaysa walaaca laga qabo in weerarku uu carqaladeeyo dadaalada dhanka diblomaasiyadda wuxuu ku tilmaamay dhacdo nasiib darro wuxuuna sheegay in si kale wax loo xallin karay si hadalku uu yiri laakiin wuxuu yiri Xamaas meesha laga saaraa waa muhiim waa in la soo daayaa maxaabiista lagu haysta Mareykanka Gaza waxa kale oo wararka imika soo dhacaya kamid ah mas'uuliyiin ka tirsan militariga Israa'iil ayaa waxa ay sheegayaan inaysan ka lidi doonin ilaa iyo inta Xamaas ay beegsan doonaan meel walba ay joogto warar kale degdeg hadda soo dhacay waxa kamid ah militariga Israa'iil ku andacoonaya in ay ka hortageen gantaal laga soo tuuray dhanka Yemen sida hadalka loo dhigay maxamed xagga qubarada aynu eegno bal waxaad inooga warantaa ninkan hore uga tirsanaan jiray ciidanka Mareykanka oo arrintan ka hadlay waxa uu ka yiri Adam Clements oo hore sarkaal uga ahaan jiray ciidamada Mareykanka ayaa sheegaya in maamulka Trump doorkiisa ilaa ay hadda u muuqdo mid isku dhaxyaacsan haddii dowladda Mareykanka ay ogeyd weerarkan dowladda Mareykanku waxa ay rabi lahayd in ay la baxdo ama markay ugu yaraato ay gabaad siiso diblomaasiyiinteeda waaweyn iyo saraakiisha sarsare ee ciidamada ee ku sugan Qatar waxa kale uu yiri wax lala yaabo ah yey tahay cidda hadda arrintan maareynaysa haddii dowladda Mareykanka ay u sheegtay Israa'iil waxa ay sameynayso iyo haddii dhinaca kale Israa'iil ay ku wargelisay Mareykanka waxa ay sameynayso waxay ila tahay buu yiri arrintaasi ayaa waxa ay tahay arrin weli socota
oo aanan gunaanidkeeda la gaari karin. waayahay qabiir kale oo isna arrimahani ka hadlay ayaan u imaan doonaa, laakiin war degdeg hadda soo dhacay dhanka Turkiga warar laga helay waxay sheegayaan in sirdoonka Turkigu ay ka war heleen diyaaradaha F-35 oo ku socda dalka Qatar dhankiisa, isla markaasna Qatar ay ku wargeliyeen inay jiraan diyaaradahaas inay ku soo fool leeyihiin. Arrimahaas waynu sii falaqayn doonaa. Maxamed, ninkan khabiirka ah oo ka tirsan King's College magaalada London, arrintan wuxuu leeyahay waa arrin ka soo horjeeda danaha Maraykanka. Muxuu ku fasirayaa? Rob Grimfold oo ah aqoon-yahan ku takhasusay arrimaha amniga kana tirsan jaamacadda King's College ee magaalada London ayaa sheegaya halka waxa dhacay iyo Israa'iil doodeeda iyo weerarka ay ku qaaday Dooxa uu fahmi karayo. haddana waxa lala yaabo waxa weeye in dowladda Maraykanka ay ogolaatay in weerar noocaas oo kale ah Israa'iil ay qaado iyada oo aan Maraykanka la wargelin. Israa'iil haddii ay go'aansatay sidaasi, faa'iidada laga gaari karayo ee ah in hoggaanka ururka Xamaas in laga takhalusaa ay qiimo kasta yeelan karto iyo xiriirka Qatar waxyeelada u keeni karto ayuu ka hadlay. waxaanu yiri arrintaasi waxay ka soo horjeedaa danaha qaranka ee waddanka Maraykanka. waxaan maqalnay buu yiri lafagurayaal badan oo sheegaya in dowladda Maraykanka ciidankeeda dhexe ee SATCOM loo yaqaano inay halkaasi saldhig military ku leeyihiin. waxaana cad buu leeyahay in khatar weyn ay galeen muwaadiniinta Maraykanka iyo ciidamada Maraykanka ee ku sugan Qatar haddii weerarka saas oo kale oo qeyr mas'uulinimada Israa'iil ay qaaday uu dhaco ama cid kale ay geysato. waa tahay waxaan eegi doonaa mar dhow wararka caalamka wadamada caalamka sida arrintan ay uga hadleen, laakiin war degdeg ayaa hadda soo dhacay oo runtii aad la yaab u leh. waxaa saxaafadda la hadlay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda waddanka Qatar, Majid Al-Ansari. wuxuu yiri wararka sheegaya in Maraykanka uu ku soo wargeliyey Qatar weerarka Israa'iil waxba kama jiraan buu yiri. ma jirto yiri wax aan ka ogeyn weerarkaasi inuu soo socdo iyo in kale. warkan waa war degdeg hadda soo dhacay, laakiin Qatar waxay sheegaysaa inaysan waxba ka jirin wararka sheegaya in lagu soo wargeliyo weerar inuu ku soo fool leeyahay. waa hagaag Maxamed, bal waxaad noo guud martaa wadamada caalamka adoo noo soo koobaya sida arrintan ay uga hadleen. wadamo badan baa hadlay oo kuwa quudaha waaweynka ay ku jiraan, bal inoo guud mar waxa arrintan laga yiri. Ambrayn caalami ah ayaa ka timid dhammaan dalalka Carabta iyo meelo ka fogfog oo lagu cambaareynayo Israa'iil weerarka ay ku qaatay Qatar, xadgudubna ku samaysay madax bannaanideeda khatarna ku ah xasiloonida gobolka Bariga Dhexe. Saudi Arabia ayaa amiirka dhaxalka iskale Maxamed bin Salmaan waxa uu taleefon u diray amiir Sheikh Tamim wuxuuna u xaqiijiyey inuu si buuxda u taageerayo una cambaareynayo weerarka gardarrada Israa'iil soo qaaday, wuxuuna ballan qaaday inuu awood walba ku taageeri doono waddanka Qatar. Jordan boqorkeeda Cabdallaha labaad ayaa isna Sheikh Tamim ku sheegay in Qatar amnigeeda uu yahay sida amniga Jordan oo kale. wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Qatar Ayman Safadi ayaa ku sheegay weerarka inuu yahay mid fulaynimo ah oo xadgudub ah. waxa uuna dalbaday caalamka in ay Israa'iil arrintaasi ka cabsi geliyaan weerarada noocaas oo kale ah. waddanka istaga Imaaraadka Carabta ayaa isna sidoo kale cambaariyey oo barbar istaagay waddanka Qatar. Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa ku baaqday in weerarka Israa'iil ay ku qaaday Dooxa in uu yahay fal guracan oo argagixiso xadgudubna ku yahay qawaaniinta caalamiga ah. Kuwait ayaa sidoo kale cambaaraysay, Cumaan ayaa sidoo kale cambaaraysay. Falastiin madaxweynaheeda Maxamuud Cabbaas ayaa ku sheegay xadgudub weyn inay tahay, waxaana sidoo kale cambaareeyey dowladda Masar oo ku sheegtay in falkaasi uu yahay mid khatar ah oo dagaalka dardargelinaya. Suuriya ayaa si weyn u cambaaraysay, sidoo kale Ciraaq ayaa cambaaraysay. Lubnaan madaxweynaheeda ayaa cambaareeyey. ururka Xisbullah ayaa isla dhankiisa cambaareeyey weerarka
lagu bartilmaameedsaday hogaamiyaasha xamaas inuu yahay xadgudub lagu sameynayo madax banaanida wadan aan walaalanahay oo wadanka aan walaalahanahay ee qatar. Algeria ayaa sidoo kale cambaari weyn jeedisay. waxaa sidoo kale cambaareen jeedisay wadanka Morocco iyo Suudaan, Yemen iyo xukuumadda Xuutiyiinta ayaa sidoo kale cambaareeyay weerarka xadgudubka ah madax banaanida wadanka qatar, waxaana uu khatar ku yahay baa la yiri carabta iyo adduunka islaamka. waxaa sidoo kale ay cambaareen kasoo yeeraysaa wadamada caalamka. Turkiga ayaa sidoo kale ku sheegay arrintaasi inay tahay arrin laga xumaado, waxayna caddeyn u tahay Israa'iil inay ku aqdaamanayso argagixiso dowladnimo. Iiraan ayaa ku sheegtay falkaasi mid khatar ah oo faldambiyeed ah. Norway ayaa sidoo kale cambaaraysay. Shiinaha ayaa digniin weyn jeediyey oo wuxuu yiri falka Israa'iil geedisay waxa uu muujinayaa inay qawaaniinta caalamiga ilaalinayn. Pakistan ayaa sidoo kale ku sheegtay weerarkaasi mid aan cudurdaar loo heli karaynin, xadgudub weyn oo gardarro ana ku ah, khatarna ku ah nabadda gobolka. waxaa sidoo kale hadda soo baxaya in wadanka qatar uu si rasmi ah u gudbiyey cambaareyn iyo dacwo golaha amniga ee qaramada midoobay. waayahay markaan falaqaynta wareegayno maxamed, arrinta la isweydiinaya waxay tahay maxamed, qariirada markaynu eegno Israa'iil cirifkaasay ku taal badda Mediterranean-ka, qatarna waxay ku taal gacanka Bershiya ama Khaliijka. wadamo badan baa u dhaxeeya. dad badan waxay leeyihiin waxay soo mareen diyaaradahan si hadalka loo dhigay hawada Syria, Ciraaq, kadibna badday ka soo gudbeen dhanka Kuwait. laakiin sidee u suurtageli kartaaba in Israa'iil weerar caynkaasi ay fuliso? xageeba isticmaashay waa la oranayaa marka laga hadlayo airspace-ka ama hawada wadamadan gobolka oo bacdama qatar ay tahay meel yar oo haddana ku taal meel xasaasi ah oo ay ku yaalaan weliba saldhigyo military oo waaweyn oo uu ku yaalo Al-Udeyd, saldhigga military ee ugu weyn Mareykanka bariga dhexe. su-aashaas waa su-aal aad u fiican, waa su-aal xasaasi ah. waxa weeye lacag kasta hayso, maal kasta hayso, galgal kasta lahaaw, marka ay timaado amniga Israa'iil laga gadi maayo waxyaabaha iyo raadarada lagu ogaan karo diyaaradaha F-35. waxaana muuqata diyaaradani inay dul martay wadamo carbeed markay xadgudub ku sameynaysay. Turkiga warka ay soo saareen ayaa cadaynaysa inay arkeen diyaarado ku sii jeeda qatar oo ay ku wargeliyeen, laakiin wadamada carabta kulligood wax haysta lama arko raadaaro diyaaradahan lagu ogaan karo. xoolahooda iyo maalkoodana waxay ku khasaariyeen sida khabiirada hadalka u dhigayaan in ay hub ka gataan wadamada reer galbeedka. laakiin hub kasto ay gataan waxa weeye mid dhiman oo aanan ku filnayn in amnigooda iyo hawadooda ay ku ilaaliyaan. duqeynta markay dhacdo wixii ka dambeysay Dooxa oo ka mid ah eeraboorada ugu mashquulsan caalamka, eeraboorkeeda weyn ayaa hawadeeda dhan cidla ayay ahayd muddo saacada. ballanqaadka uu Mareykanka bixinayo oo ah arrintan marnaba ma dhacayso ayaa waxa ay ku tusaysaa in wadamada carabta xoolo kasta ay haystaan iyo maal kasta ay ku fadhiyaan iyo in saliidii adduunka dhulkooda ku xariisan yahay inaynan wax saameyna iyo wax galgala lahayn marka ay timaado difaacidda hawadooda. waay arrin kaloo muhiim ah isweydiino hadda warkeena ku jirtay Carol Levitt oo ah afayeenka aqalka cad ee waddanka Mareykanka shir jiraad bay akhrisay intaynu barnaamijka soo gelin daqiiqada ka hor, waxaana ay sheegtay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu qadka telefoonka kula hadlay amiirka qatar iyo ra'iisul wasaaraha qatar. laakiin qatar waxay leedahay anaga cidna nooma soo sheegin arrintan. meesha Trump uu leeyahay Stephen Witkoff baan u faray inuu arrintaasi kala hadlo qatar. labadaas war oo iska soo horjeeda wali waa kana Majid Al-Ansari halkan ka la soo saaray bartiisa bulshada hadalka uu soo dhigay uu beeninayo gabi ahaanba inaysan hayn macluumaad la xiriira in hore lagu soo wargeliyay arrintan. Trump markuu hadalkiisa uu ka soo yeeray afayeenka aqalka cad in afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda qatar warkan uu jeediyo soo wajigabax iyo yaxyax ku noqomaysa Mareykanka. dawladaha HBN waa inay ogaadaan
in macluumaad beena la sheego idaacadaha la marin habaabiyo adduunka la marin habaabiyo lagama xishoonayo laakiin xilligii hadda wararka laga qaadan jiray dhinacyada kale waa laga gudbay warka ciddii ehel u ah ayaa ka hadlaysa mas-uulka hadlaya ee leh maraykanka war noloma sheegin weerarkan la xiriira waa mas-uul qadari ah weeye cid ka dambaysa oo la weydiinaya ma jirto maraykanka warka uu sheegayo waa war wax ka soo noqdeen tan kale annagu waan sheegnay maraykanka in uu arrintani ku wargeliyey waddanka qatar laakiin warkii waa laga daba yimid baraha bulshada iyo nidaamka warbaahinta caalamka hadda sida u shaqaynayso warka la sheego cidda ehelka u ah ayaa warka ugu dambeeya laga qaataa weeraradan markii ay soo baxeen Israa'iil dhankeeda xataa magacyadii mas'uuliyiinta ay dishay ayay ka hadlaysay annaga waa ka gaabsanay idaacadeena hore waxaan sugaynay dhinaca Xamaas warka ka soo baxa Xamaas inay madaxdii oo dhan badbaado ayay sheegtay waxa weeye dagaalka ayay ka mid tahay idaacadda iyo wararka la isku marin habaabinayo waayo arrin kale marka muhiim aan ka eegno Israa'iil waxay ku guuleysatay inay khaarijiso madax aad u fara badan gobolka bariga dhexe Iiraan taliyaal ciidan iyo saynisyahanno waxa ugu dambeeyay weerarka Xuutiga ra'iisul wasaarihii lagu dilay iyo xubno wasiirro ah Xasan Nasrallah Ismaaciil Haniyeh laftiisa oo lagu dilay magaalada Tehran rag badan bay Lubnaan iyo Syria ku beegsatay iyo meelo kaleba laakiin arrintan qadar inay ku fashilantay Netanyahu caawa muxuu ku sugan yahay Netanyahu tabarta kaliya u hartay waxa weeye maadaama ciidankiisa ay jabeen Xamaasna ay adkaatay caalamka oo dhan uu ogsoon yahay inay Xamaas adkaatay cidda kaliya aan ogsoon ee la baqsanayo waxa weeye dadka wali ka dhageysanaya Israa'iil iyo Mareykanka war ka dhageysanaya waxyaabaha socda ayaa waxay tahay Israa'iil waxay rabtaa wax badbaadiya hore ayuu Netanyahu u sheegay haddii aan dagaalkan joojino aan meeshan ka baxno oo Xamaas oo xoog leh ay harto mustaqbalka Israa'iil way dhamaatay waa dhab weeye Xamaas wali meydaankii dagaalka ayay taagan yihiin afyeenkii ugu dambeeyay Xamaas ee dagaalka hadlay waxa uu yiri oo ahaa ninkii ay ku sheegeen inay khaarijiyeen Abu Ubayda ayaa si buuxda u sheegay waxa uu yiri markii ay meydaankii wax guul ka keeni waayeen ayaa caalamku waxay u sheegayaan aniga inay dileen waxa socota marka sida Israa'iil ay dhowr goor ugu guuleysatay inay weerar gaadma qaado hadda waxaad moodaa in 10 la bartay waxa laga yaabaa sida khabiirada qaar ay hadalka u dhigayaan ururka Xamaas marka ay galayeen shirka in meesha ay shirka ku galayeen ay isla markiiba bedesheen sababtoo ah way ogaayeen Israa'iil hanjabaadeedan muddada dheer ay ku celcelinaysay inay gacanteeda dheer tahay meel walba gaari doonto meeshii way tageen laakiin meelaha la duqeeyay meel aan ahayn ayay ku shirayeen tan kale oo ayadan soo taraysaa waxay tahay amniga waddanka Qatar iyo wadamada Carbeed ayaa waxaa muuqata inayna damaanad qaadi karin inay waddankooda ku nabadgelayso Qatar oo dhexdhexaadi ahayd oo muddo dheer ka shaqeynaysay arrintan dhexdhexaadinta in xadgudub waddankeeda lagu sameeyo fadeexadaasna ay ka dhacdo ayaa waxay tahay waxaan la qaadan karin tan kale darsi ayaa ugu sugan Qatar laftirkeeda iyo wadamada kale Carabta ee xiriir kala leh Israa'iil waxa weeye Israa'iil wax ay xiriirisa lama arko culimada islaamka taariikhda islaamku way ka buuxdaa heshiis kasta ay gasho ayay ka baxdaa Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam markii Madiina ee heshiiska Israa'iiliyiintu la galeen waad ogeyd inay ka baxeen oo taariikhda iyo siirada ku taala ninkii maanta nool ee heshiis la galay Israa'iil ee qarniga 21aad 10 ku filan ayuu haystaa laakiin sidaas oo ay tahay ayaa dadka qaarkiis indhahooda caadsaareen way arinta soo hadal qaaday aan dul istaagno oo ah saldhigyada military Mareykanka ku leeyahay gobolka dagaalkii Kuwait wixii ka dambeeyay Saddam Hussein ku qaadayay waxa la og yahay in hogaamiyaasha intooda badan khaliijka ay isku arkaan Mareykanka inuu u yahay garab iyo gaashaan hadda warbaahinta Israa'iil waxay sheegaysaa
15 diyuurado inay ka qayb qaateen weerarka maraykanka alcudeyd buu degan yahay oo saldhigga ugu weyn maraykanka uu ku leeyahay gobolka bariga dhexe qatar buu ku yaalaa maxay u taraysaa marka wadamadan carabta oo looga qaataa dhaqaalaha lagu ilaaliyo haddii aan la badbaadin karin tan kaleeto hubkan la isticmaalay waa hubkii maraykanka muwaadin qatar ku dhintay xamaas waxay leedahay 5 qof baa ku dhimatay meesha laakiin qatar ilaa hadda waxay xaqiijisay hal nin oo kamid ah ciidamada ammaanka inuu halkaas ku geeriyooday marka saldhigyada maraykanka meesha ku yaal lacag badan baa looga qaataa qatar bishii May madaxweyne Trump waxay siisay diyaarad Boeing 747 oo 400 milyan oo dollar ku fadhida laakiin qalabka lagu soo weeraro qalabkii maraykanka meesha maraykanka degan maxay u taraysaa marka wadamadan carabta dhaqaalaha badan ugu bixinayaan saldhigyadan meesha ku yaala miyaysan ahayn maanta in laga fakaro meelo kale tusaale Shiina wuxuu soo bandhigay waynu arkaynay qalab military meesha hadda maraykanka iyo Israa'iil isticmaalayaan iyo adduunyada kale gantaalo in gantaal laga horgeeyo laser buu soo bandhigay Shiina ma arrinta ma noqon kartaa kala wareegii ma ka bilaaban karaa arrintan iyo isbedel ma ku imaan karaa gobolka wadamada gacanka ku yaala ma wada shaqeeyaan qof walba dantiisa ayuu ka shaqeeyaa ammaankooda wadamada ammaankooda la ilaalinayaa waxa weeye waa erayo la isugu beenguurayo waxa ammaankooda la ilaalinayo waxa weeye caa'ilaadka wadamada ka taliya sida qabiilada qaar ay hadal ku dhigayaan oo Cabdibaari Cadwaan ka mid yahay waxa weeye ayaga iyo dadkooda la kala ilaalinaya waxa weeye agabka militariga ee laga gado waxa weeye waxa ku bulaalaya shirkadaha hubka sameeya oo lacagta guranaya hubkii casriga ahaa oo ay soo gateen markii ayaga dhankooda ay soo gaarto baa ka dhiman sidee ku dhacday qatar oo wadan aad u yar ah shacabkiisa uu ka yahay 500,000 leh lacagta ugu badan gaaska ugu badan adduunka soo saara in uu awood u waayay in jasiiradaas yarta ah dhulka u eg in uu ilaaliyo hawadeeda wadanka ka weyn dariska la Saudi Arabia oo Jordan iyo Iraq iyo Masar xuduud kala leh dhinacna Yemen iyo Imaaraadka kala leh sidee ku dhacday in raadaradooda ay u arki waayeen waxaas waxa weeye wax badan ayaa jira waxa weeye adduunkii waa kala guurayaa waxa weeye saaxiibo cusub ayaa samaysmaya dorotuskii military ee uu Shiinuhu sameeyay aad xustay sida reer galbeedka ay uga naxeen ma malayn karaysid laserka aad arkaysid in la hubeeyo muddo dheer ayaa reer galbeedku isku dayeen waxa weeye sida ay Shiinuhu sida sahlan ay ku samaysteen way ku dhib badan tahay sababtoo ah warshadihii oo dhan ayaa ka guuray 30 sano la soo dhaafay wadamada reer galbeedka oo waxay u guureen wadamada Asia dadkii xirfadda lahaa oo xataa maraakiibta dhisi jira ayaa la waayay waxaad moodaa marka falsafadii dagaalka iyo caqligii dagaalka ee qarnigii 20aad iyo qarnigii 19aad waa laga gudbay dagaalka Ukraine wada aragtaa inay Ukraine isku dhalaalayso wadamada reer galbeedka agabkii ay geeyeen wax waa tari waayeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee hadda caalamka haysta dadka ugu horeeya waxa ku jirta Iran oo ku saaciiday wadan Ruushka oo hub nuclear leh oo kamid ah wadamada adduunka ugu awoodda weyn shahiid 136 wacdaraha oo dagaal ka dhiga aragtay waxa weeye adduunka isbedel baa ku socda wadamada carabta arintan 10 ayay u tahay sida khabiirada qaar ay hadal ku dhigayaan laakiin 10 kamid wax laga baranayo ma yahay weey way aan ku soo gabagabayna marka Hamas waxay xaqiijisay oo dawladda qadarna ay xaqiijisay mas'uuliyadda Hamas inay u fadhiyeen inay darsaan hindisihii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump soo bandhigay oo ahaa in ay aqbalaan xabajoojinta isagoo soo jeediyay maxaabiista la soo daayo laga wada hadal dagaalka in la joojiyo isla maalinta ku xigta Israa'iil inay weerarto fariinsidihii lala xaajoonayay macnaheedu waxay ka dhigantay albaabka inuu xirmay sidaas arrintan dhanka Mareykanka iyo Israa'iil haddii daacad ay ka tahay Trump inuu dagaalkan joojiyo arrintan ay uga dhex abuuraysaa labadaas qodob adoo isku fiirinaya Maxamed su'aashaas ay weydiinayso su'aal aad iyo aad u culus weey in Israa'iil dagaalka ay ku fashilantay ayaa la qarinayaa waxaa loo raadinayaa Israa'iil wajiga in
foolxumada looga dhaqo. xamaas waxaa lagu dirqinayey in ay yeesho waxyaabaha israa'iil ay soo jeedinayso. xamaasna waxay miiska la yimaadeen. israa'iil waxay xoog ku weyday, maraykanna ma siin karo, cid kalena ma siin karto, mana tanaasuleyno. israa'iil sababta ay u duuleysaa waxay tahay waxaa soo cadaanaysa oo saraakiisheeda iyo khabiradeeda militariga iyo siyaasiyiinteeda iyo ciidamadeeda iyo kuwii dagaalka ku jiray ay kulligood sheegayaan in dagaalka ku dhufoo ka dhaqaaqdaya xamaas wado inayna israa'iil tabar u haynin iyo ururada kale oo iska caabinta wada. agabkii militariga ee meesha ay geeyeen waa laga cawday. baabuurtii qafilnaa, taangiyadii waa la dhalaalinayaa. askartii keliya uma hayaan ay safka hore ku tagaan. waxa ay israa'iil bilowday marka daara waaweyn inay burburiso iyo si ay jabkeeda ku qariso in ay duqayso waddan aanan arrimahan ku dhex jirin oo dhexdhexaadi ah. waxaasoo dhan maraykanku waxa uu raadinayaa in israa'iil taageeradii maraykanka iyo reer galbeedka ay siinayeen ay wax ku tari weyday, inay jabtay. dagaalkanna waxa weeye dagaalkii koowaad oo ay falastiiniintu la galaan israa'iil, waana dagaalkii ugu dheeraa oo israa'iil ebed gasho, waana ku jabtay dagaalkan. xoog, xeel, qalab, diblomaasi, wax kastoo loo sameeyey. waxaana soo baxday xaasidnimada, cunsurinimada, muslim nacaybka wadamada qaar oo maraykanku ka mid yahay. waxaa kaloo ayadana su-aasheeda qaybta labaad laga hadlayaa israa'iil xishood wax la yidhahda ma jiro. nafla caari weeye xukuumadda netanyahu iyo wasiiradiisa xag jirka ah. markii weerarkan u dhacayay nin mas-uul ah oo israa'iili ah oo ka hadlayay arrimahan markii ay fakadeen mas-uuliyiintii xamaas oo ay tiigsanayeen, wuu hadli waaye. mikrofonadii ayadoo hor yaalaan sida u naftuuray waa yaabaysaa iyo cabsida haysa. waxa weeye tan xag ilaahay kama noqon, way badbaadeen, mana u muuqato in wax wada hadal ah oo ay sii socon doonaan. in israa'iil laga adkaada inay caddaato. golaha guud ee qaramadii midoobey kulankan laga hortegayo oo xataa keenay waddankii dhexdhexaadiyaha in la weeraro waxa weeye sidii loo badbaadin lahaa go'doominta ku soo foodle maraykanka iyo israa'iil mustaqbalkeeda. waxaana muuqata wax kastoo dhacaba in golaha ammaanka shirkiisa uu dhici doono. mas-uuliyiintan xamaasna inay xeeshooda bedelayaan, waxayna u badan tahay inay arrimaha amnigooda ay ka fekeraan, sababtoo ah waddankan qatar sida muuqata ma difaaci karayo mas-uuliyiintan dhibaatada xoogga leh iyo dagaalka xoogga leh dadkooda lagu hayo. haddii xataa ay dhiman lahaayeen, ayaa khabirada qaar waxay leeyihin, xataa haddii ay dhiman lahaayeen, dadkan dibadda jooga waa dadkii lala xaajoon jiray, waa xafiiska siyaasadda weeye. weli waxaa jooga nimankii israa'iil ka adkaada ee dhulka jooga. waxaan kusoo gabagabaynaynaa warbaahinta israa'iil ayaa waxay tabinaysaa, gaar ahaan hay-adda rasmiga warbaahinta israa'iil, in ergada wadaxaajoodka israa'iil, taliyaha sirdoonka Mossad iyo abaanduulaha ciidankuba ay ka hor yimaadeen weerarka lagu qaaday qatar, oo ay ka digeen oo yiraahdeen weli waxaa furan albaabkii wadaxaajoodka yaan la xirin, oo ay ka digeen weerarka intuusan dhicin, sida israa'iil hadalka ay u dhigaysay warbaahinteeda. waa hagaag maxamed, aad baad u mahadsan tahay. daawadayaashanu ay mahadsan yihiin. mar kale ayaan soo dhaweynaynaa. intaa ayaan caawa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii qubanaha. waana ku mahadsan tihiin daawadayaal daawashada barnaamijka. si aad ula socoto wararkan, barnaamijyadan iyo macluumaadka aynu soo gudbino, haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn, hadda ku soo biir. aynoo barnaamijka xiga insha allah. inta ka horeysa nabadgeli. ma ogtahay in hilibka yaalla suuqyada dalalka khaliijka, yurub iyo maraykanka aad ka helayso magaalada muqdisho? Somali Meat Company ku dooro hilib nadiif ah oo lagu qalay kawaan nadiif ah, iyadoo la hubiyey badqabka caafimaadka xoolaha. hadda dalbo hilib geel, lo ama ari adigoo ka heli kara xarumaha Somali Meat Company ku leedahay gobolka Banaadir ama wac nambarka ku muuqda. ku soo dhowow Safari Remit, warkii ugu mudnaayo weligaa aad maqashaan hadda ku warramaya ee kaalay u hesho Safari Remit. haddii aad ku nooshahay dalka UK, Safari Remit waxay kaa caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka kuu jooga geeska Afrika sida Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan
tanzaniya iyo weliba dalka turkiga si fudud oo qiimuhuna jaban yahay macaamiisha cusub waa khidmad la'aan 3 jeer ugu horeysa lacag diristooda isticmaalka Safari Remit waa mid aad u sahlan waxaana ka xigta inaad booqatid www.safaririmit.com waxaadna ka geli kartaa laptopkaaga mobilkaaga ama iPadkaaga meel kasta oo aad joogto Safari Remit hadda adeegeeda waxay ka bilowday dalka UK mar dhowna waxa ay ku baahi doontaa dhammaan wadamada Yurub iyo waqooyiga Amerika Safari Remit rugta lacag dirista ugu fudud baahi tiraha baahi loo qabay Safari Remit